السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أردد شرفت لو حن الله هاي welcome back again. ما شاء الله أدي فرحة ديوتي أنا مركلات كسر مقضو حقاك 10 هو حرية أن أبحي لايفك بان halkan raba inaan kusoo bandhigo qoraalkiisa maadaama ardayda qaar qoraalka ay ku adkaatay in ay san waxba soo qori karin marka intii aan waxba soo qori karin aan rabaa insha Allah dhammaanteen intii live-ka xataa hore daawatay in si guud ah lagu wada faa'iideysto haddii aan leedno so insha Allah muxuu ahaa live baa ka socda YouTube-ka live-kaas ka soo qayb galsay muxuu ahaa aad luqadda ayadoo practical ah oo markaas bixayso aad macalinka aad ula practice gareyso oo dhagaha aad wax ka dhageysato oo aad wax qorto insha Allah so muuqaalka hadduu ku soo gaaray insha Allah si shay gareeya muxuu ahaa dhiirigelin bay inoo tahay oo ardayda kale oo aad markaasi raadinayso luqadda inay barto insha Allah si gaarsiiya so ciwaanka maanta aan baranayno waxa ciwaan u ah making an apology, other ways to say sorry in English. Apology waxa la yiraahdaa raaligelin yani qof marka aad rabto inaad raaligeliso ama in marka aad wax qalad aad sameysay raaligelin marka aad rabto inaad bixiso siyaabooyinka kala duwan oo raaligelin aad u bixinayso so insha Allah halkan marka waxaan noogu soo diyaariyay muxuu ahaa sida aad raaligelin aad u bixin karto inta ugu muhiimsan oo xulka ah oo adeegsan karto oo luqadaadana horumarin karaan. Okay, yeah, so what we'll be learning is simply making an apology and how to apologize or other ways to say sorry in English. Okay, that's good. So the first phrase that you can use when you want to basically apologize someone, you can say excuse me for. So for, you know, that one, the dot that you can see there, you can add any sentence that you want to say. Okay, maybe the mistake that you have done, so you can say excuse me for being late. Are we together? Yeah, iga raali noqo maadaama aan soo dahay, for being late. Are we together? That's good. You can say also waxaa kaloo dhihi karta I apologize for being late or for the mistake I did. Waxaa raaligelin ka bixinayaa soo daahidda aan soo daahay ama mistake aan sameeyey, qaladka aan sameeyey. Waxaa kaloo dhihi karta I beg your pardon, P for pen, pardon. Waxaan baryayaa cafiskaaga, I beg your pardon. Are we together? Yeah, saasna sidoo kale waa dhihi kartaa. Waxaa kaloo dhihi kartaa I must apologize for, and then wixii markaas qaladka aad samaysan raacinaysaa I must apologize for being late. haddaa soo dahda kale macalinka u sheegaysid maybe waxaa kaloo dhihi kartaa for the mistake I did, qaladkaan sameeyo kale, maybe for not meeting you, qof baa la ballansaneed oo kale, maybe I apologize for not appearing, or maybe for not meeting you. Okay, or maybe for not fulfilling the promise. Okay, ballanti aan lahayn iyo ma wixii aan kaa ballan qaaday inaan oofin waa I must apologize, waa in aan raaligelin ka bixiya. I must waa qasab. Okay, waxaa kaloo dhihi kartaa I shouldn't waa should not. Why I shouldn't have said that, maysan ahayn in sidaasi aan dhaho. Maybe qof baa hadal xun aad ku tiri, then marka waxaa rabta in qofku waxaa rabta inuu ka carooday, raaligelin baa rabta inaad ka bixiso. So you say I shouldn't have said that, maysan ahayn in sidaasi aan dhaho, yani waxay ka dhigantahay iga raali noqo. waxaa kaloo dhihi karta I was wrong, waan qaldanaa, can you forgive me, fadlan miyaa cafin kartaa, can you forgive me. Okay, that's good. waxaa kaloo dhihi kartaa I'm terribly, aydas ee ahaan loo akhriya terribly. Tan waxaa laga soo gaabiy I am laga soo gaabiy, so ugu dhooqsa I'm terribly sorry for, then wixii aad samaysaa markaas raacinaysaa. Okay, that's good. So phrases aad isticmaali karto siyaabooyin kala duwan oo raaligelin aad u bixin karto. Waxaa aad iyo aad boring u ah oo aanan fiicnayn in had iyo jeer aad adeegsato sorry eray in markaas aad kusoo celiso. Okay, so you can say I'm terribly sorry for being late, for the mistake I did, maybe. Okay, for hurting you, in aan ku dhaawaco. Are we together? waxaa kaloo dhihi kartaa it is all my fault, waxaasoo dhan qaladkayga ayay ahayd. fault waa mistake waay. Okay, fault. Okay, yani qofku marka waxaa rabtaa inaad ku cadayso waxaas aan sameeyey, it is all my fault, waxaasoo dhan qaladkayga ayay ahayd. waxaa kaloo dhihi kartaa please accept my apology for, fadlan iga aqbal raaligelintayda, for then wixii aad samaysay, for hurting you haddaa ku dhaawacay, for being late haddaa soo daahday. Okay, yeah, for breaking the promise, in aan jebiyey ballankii. Are you together? Yeah, that's good. You can also say please forgive me for
toos waa u dhihi kartaa inaad tiraahdo icafi please forgive me fadlan icafi for then wixii aad samaysa markaas ayaad dhehaysaa so siyaabooyinkan kala duwan waa 10 siyaabood oo raaligelin aad u bixin karto habeenkii way ka badnaayeen intaan so intii live ka soo xaadirtay waxyaabooyin intaan ka badan bay faa'iideen laakiin intaan waa inta xulka ah oo ugu muhiimsan are together so waxaan rajeynayaa in aad aad qoran doonto sidoo kalena aad adeegsan doonto so haddana waxaan arkaynaa sida aad yani qof marka raali noqo aad tiraahdo muxuu asagana ku jawaabi karaa ama adiga haddii lagu dhaho raali noqo maxaa ku jawaabi kartaa let's see it now okay waa kana marka accepting an apology in aad aqbasho raaligelin yani raali noqo lagu dhahay so adiga maxaa ku jawaabaysaa marka qof markuu ku dhaho raali noqo waxyaabaha ugu jawaabi kartaa halkan sidoo kale ku xusan so when you want to accept an apology or when someone is offering that maybe he is showing that the mistake he or she has did so these are the phrases that you can use all right okay that's good so phrase ka ugu horeeya adeegsan karta waxaa inaad tiraahdo don't worry you are forgiven don't worry you are forgiven don't worry you are forgiven hawalwalin waa lagu cafiyey qofka raali noqo ku dhahay siyaabooyinka kala duwanaa raali u noqo ku dhahay I must apologize this is all my fault okay I pardon you I beg your pardon all that yani wixii markaas qofka oo raaligelin ah uu kugu raaligelinayo oo dhan buu adeegsaday so adiga marka waxaad dhihi kartaa don't worry waxbaha ka walwalin you are forgiven waa lagu cafiyey waxaa kaloo dhihi kartaa no need to apologize it's okay no need to apologize it is okay okay yeah ma loo baahno wax raaligelinaya inaad bixiso it's okay iska caadi waxaas wax weyn maahan okay no need to apologize is okay waxaa la dhihi kartaa that is all right that is th taas in lagu dhawaaqo aad muhiim u tahay that is all right taas waa iska caadi waa all right okay camal waa that is all right okay waa iska caadi wax weyn maahan waxaa kaloo dhihi kartaa don't worry about it don't worry about it okay don't worry about it waxba ha ka walwalin okay ya waxba ha ka walwalin don't worry about it ya wax sas weyn ma sameeynin don't worry about it waxaa kaloo dhihi kartaa don't mention it don't mention it don't mention it waxba ha sheegin okay wuxuu ku dhahay hal noqo iyo caafi waxaas dhan qaladkii ana samee see all that isticmaal so waxaa dhihi kartaa don't mention it are we together yeah don't mention it waxba ha sheegin okay another phrase that you can use you can say no harm done yani wax dhibaato oo aad geysatay malahan no harm done I must apologize for the mistake I did qofkaas ku dhawa in aan raaligelin ka bixiya dhibaatada aan ku geystay okay waxaa leedahay marka no harm done waa iska fududahay waa jumlo yar adeegsan karta carabkaagana muxuu ahaa fududayn karo luqadana ku hadli karta no harm done wax dhibaato aad geysatay malahan waxaa kaloo dhihi kartaa no worries wax walwala ma jiro no worries just is simple okay no worries wax walwala ma jirto okay no worries waxaa kaloo dhihi kartaa please don't let it happen again please don't let it happen again fadlan mar kale yeesan dhicin qofka qalad uu sameeyay so marka raali noqo ku dhahay muxuu ku dhahay just please forgive me fadlan icafi okay I beg your pardon okay yeah I need to apologize waxaan rabaa inaan raali galeeyo waxaas oo dhan ku dhahay so adiga marka waxaa leedahay please don't let it happen again fadlan mar kale yeesan dhicin please don't let it happen again ya mar dambe yeesan dhicin yani waxay ka macnaysan tahay raali wax ka hadartan laakiin mar dambe qaladkaas sameeynin please don't let it happen again are you together that's good waxaa dhihi kartaa don't apologize wax raaligelin ha bixinin don't apologize wax raaligelin ah muxuu ahaa ha bixinin okay waa caadi waay waxaa dhihi kartaa think nothing of it kayda iyo jesus dhawaaqada in la kala saaro waa think ka waa nothing of it okay think nothing of it ka soo qaad waxba inaysan dhicin think nothing of it ka soo qaad please forgive me qof ku dhahay cafi think nothing of it waa phrase aad u fiican anigana aad u adeegsado oo aan jeclahay waa think nothing of it phrase aad u fiican waaye muxuu luqadda horumarin kara qof wuxuu dhahay qalad ku sameeyo or just think nothing of it ka soo qaad waxba inaysan dhicin okay think
nothing of it. So these are phrases that you can use simply when you want to accept an apology, okay? And when someone is asking for, or someone is saying, I'm sorry, on all that, these are the phrases that you can use. And hopefully, inshallah, this one will assist you, and let us use them, inshallah, so that we be fluent and get that confidence when it comes to speaking this language. Are we together? That's good. So inshallah muuqaalkan halkaas uu ka doon hadduu alla idmo. Muhiimadda ayaa waxay tahay waxa aad baratay inaad adeegsato si ay kaaga muuqdaan. Wixii haddaad adeegsan weyso waa hal bacaad lagu lisay, waxba ma soo kordhinayso. So let us use these phrases. Yes, noqon kaliya wixii intaan aragno aan ka dhaqaaqno. Muxuu ahaa phrase-ka xifdi adeegso. Nolol maalmeedkaaga ha ka mid noqdo. Carabkaaga haddaad barto, then wix waa la qabsanaysaa. Are we together? That's good. Inshallah muuqaalka xigeentan ka kulmi doono. خير تربدنا نكون إن شاء الله هدو علينا حال السيشة إن شاء الله مقالكنا لايك تهدانا لايك سارين حال لايك جريسيمكاس أبدي بدن وقارو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.